asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu akhyaarta sharafta leh soo dhawaada. Maanta waxaa halkan ku sameeyay shawarmo, chicken shawarmo oo inaba caadi aanan ahayn. Marka shawarmadan waxaan ka sameynayaa insha Allah digaaga, waliba qaybta lugta digaaga ayaan ka sameynayaa shawarmadan. Dhalinyaro badan maartay maasha Allah, wiilal iyo gabdho iskugu jira iskaabul sideedoo kale ah. Yani way jecel yihiin shawarmada inay meelaha ka soo iibsadaan, laakiin sidaan u sameynaya haddaad fiirsataan waad sameyn kartaan si yaroo sahal weeyaan shawarmadan. Hadda waxaan ka bilaabeynaa marka laba xabo oo lugtii digaaga ah, laba lugood oo digaag ayaan maqaarka ka fiiqayaa, kabacdina lafta ayaan ka saarayaa. Maqaarka markaan ka saaro laftaan ka saarayaa, kadib spice baan marinayaa, kabacdi waan grilleynayaa, waan shiilayaa. labada lugood waxaan ka saaray horta maqaarka, kabacdina waxaan ka goynayaa inta yar cadiinta ah iyo lafahan ka saarayaa, lafta gudaha ku jirta ee lugta ayaan ka saarayaa. saad arkaysaan halkan waxaa ku jiro filfil madow, toon khalalan, paprika powder, barbarooni qalalan, wax yar oo cusbo ah, milix in yar oo milixa iyo in yar oo basbaas qalalan oo shiidan, toon qalalan, filfil madow. Hadda digaaga waxaan ka soo saaray qolofkii iyo waxaan ka soo saaray iyo lugtii laftii ku dhex jirta ayaan ka saaray. Waxaan ku darayaa in yar oo soya sauce ah. Kabacdi waxaan ku darayaa hadda spiceski. Digaaga markasta gacanta ku qabatid waxaa fiican, digaaga bakteeriyihiisa way badan tahay, inaad gacantada mar kastaba aad dhaqdid oo weel kale aadan ku taaban. Marka saas gacanta ugula baxdid gacanta markii waa inaan dhaqdaa, meesha aad kaga shaqeysan waa inaad si fiican u dhaqdaa. digaaga sidii hilibka kale ma uu ka bakteeriya badan yahay digaaga, waa kiriskiisana waa inaad si fiican u karisaa, fiican digaaga oo si fiican u shiishaa. Spiceski marinationki ayaan hadda maaragtay si fiican ugu dhex gelinayaa. Marka muddo waxaan dhigayaa 20 daqiiqo ah markaan spiceskan mariyo. Hadda butter ayaan ku ridnay digsigan. Butterka markuu si fiican u soo kulaado ayaan maaragtay waxaan ku dhex dhigaynaa marka chickenkii. 20 daqiiqo spices la dhigay. Waana 20 daqiiqo ama 30 daqiiqo spices waana la dhigtaa. Xawaajiyaasha amiriya waana la dhigtaa muddo 20 daqiiqo ama 30 daqiiqo ah. labada dhinac horta waa inaan si fiican u guduudisaa oo si fiican u shiishaa oo grill ah ka dhigtaa. Marka hadda markaan saas u grillino waa dabooleynaa marka suu si fiican ugu bislaado. kadib ayaan waxaan ku dari doonaa basal ayaan hadda ku daray iyo in yar oo kabsar caleen ah. digaaga marka waan ka soo bixinayaa, waan soo jarjarayaa, kabacdi haddana sida digsigii ayaan ku soo celinayaa. digaagii waan soo jarjaray, kadib basashii kabsar caleenta oo sii shiilmayso ayaan ku ridaadna mar kale. marka hadda halkan waxaan ku ridi doonaa insha Allah baaquligan yar dhalada ah, min yar oo mayonnaise ah, tomato ketchup iyo chili sauce ayaan ku daranaa. Chili sauce waxaa weeyaan waa basbaas iyo in yar waxaan ku darayaa marka maxaa la dhahay toon qalalan, garlic powder
waxaan kaloo ku darayaa tomato ketchup iyo waxaan ku darayaa chili sauce. hadda waxaan ku darayaa waxaa weeyaan waa toontii qalneed garlic powder. waxaan ku darayaa tomato ketchup. waxaan ku darayaa haddana waxay halkaas kaga daata. waxaan ku darayaa chili sauce ayaan haddana ku daray. intan ayaan maaragtay isku qasayaa hadda markan isdhex gelinaya. haddaa rabto wax yar oo qal oo ku darsan kartaa ama lin yar oo leyn dhanaan laakiin aniga intaan waxaas leeyahay waa okay. khal ama vinegar oo ku darsan kartaa haddaa u baahan tahay dhanaan ziyaada haddaa rabtid, ama milix wax yar oo ku darsan kartaa laakiin aniga ciishkan amba qubiskan waxaa la dhahaa tortilla dukaamada caadiga oo yaala. chickenkii ayaa hadda maaragtay oo noo bislaaday iyo qudaartiisii ayaan maaragtay ku darayaa hadda. ku laabayaa marka waxaan ku darayaa sauce-kii hadda isku daray hortina isku qasay tomato ketchup-kii, mayonnaise-kii, garlic powder-kii iyo chili sauce-kii. dhinacaas ayaad wax yar saas ku siinaysaa because sidii sambuusi oo kale isla sauce-kii unbaa maaragtay sauce-ka haddaan sameynay unbaa dhinac iska mariyay so afka u qabsado micnaha iskugu dhago. wax yar saanaad soo laabaysaa, dhinacaanaad kasoo laabaysaa, haddana dhinac kale kasoo laabaysaa, waa isku laabaysaa haddana. saas ayaa iskugu laabaysaa. dhinacaas saas oo kale sidii shalootadii aa ugu dhigaysaa tomato ketchup-kii iyo maaragtay iyo mayonnaise-ka isku daraya si oo isku qabsada. marka birta wax yar kuleynaysaa waa saaraysaa dhinac u gedinaysaa soo maaragtay usoo guduto. kan waxaa loo baahan yahay inuu si fiican u bislaado naftirkiisa. waa ciish aanan bisleen si fiican u bisla. marka waxaa loo baahan yahay inaad bislaysid oo garmashna kuu noqdo hadhow toole. marba dhinac kasta ayaa u gedinaysaa. dhinac kastaba waa inaad u gedisaa soo dhinac kastaba u guduto. wuu ku adkaanayaa garmash uu ku noqonaya wuuna ku bislaanaya. dhinacaas kale aan gudinaya haddana. marba dhinaca loo baahan yahay inaad u gedisid soo usoo guduto dhinac kastaba ilaa xataa dhinacyada geesaha afka hore yani xataa wax loo baahan yahay inaad saartid soo maraysa afka hore xataa wax loo baahan yahay cabaar inaad saas ugu haysid birta. chicken shawarma maasha allah inaba caadi maahan. waa aad iyo aad quality-giisa aad buu u fiican yahay runaantii. yani dhalinyarta iskaabulada wiilal iyo gabdhaba xataa maamooyinka xataa aabayaasha waxaa loo baahan yahay inay samaystaan. yani kaliya yani iskaabulada kaliya dhihin yani inkastoo iskaabulada yani badan aysan cunto karsanin oo badanaa banaanka u cararaan ee banaanka wax ka iibsadaan laakiin hadda waa si yar oo easy haddana ayaad u samaysan kartaa shawarma chickenkan. haddaa ratida baa ka samaysan kartaa shawarmada waxa la waxa markaa adii jecesha. hadda waa kaasa masha allah wuu noo soo bislaaday. afkiisa wuu is haystaa ma kala daadanaya meel uu ka daadanaya ma lahan si fiican isku haystaa. marka hadda dhexda ka kala jirana bal gudihiisa arki doona soo yahay gudihiisa maasha allah. sooskiisa ya uma baahna soos kale inaad ku darto laakiin haddaad u baahan tahay waa kusii darsan kartaa soos laakiin waa wixiisa tuu isku wada qabaa wax kale ma u baahna. only chips yar u sameyso waa dhinac ka saar ku cun kaligiisana waa cuni kartaa saas ku wata wixiisa dhanba. asxaabteyda qaaliga waxaan idin rajeynayaa insha allah inuu idin qanciyo inaad ka hesheen shawarmadan aad ka hesheen. dhinacan hadda waxaan ka saaray sooska daadati xagga dambana waxaan ka saaray in yaro mayonnaise ah in yaro tomato ketchup xagga dambana aan ka saaray. insha allah xaggeena waxaan idinka rajeynayaa inaad subscribe liketa shareta community-ga waa dhankeena insha allah.
waad ku mahadsantihiin sida wanaagsan aad u daawateen videogan.